wasiir waa ku mahadsan tahay waraysigan gaarka oo aad VOA Soomaali siinayso. Marka ugu horeyso waxaad nooga warantaa aragtida dawladda Soomaaliya ee ku aadan codsiga Kenya ee ah in 14 maalin lagu xiray xeryaha Dadaab iyo Kakuma oo dad fara badan oo qaxooti Soomaaliyeed ay ku sugan yihiin. runtii arinta qaxoontiga jooga Kenya waa arin caalami ah oo qaxoontigu waxay ku joogaan sharci caalami ah, waxay ku joogaan axdiga qaramada midoobay ee la yiraahdo Geneva Convention 1951 oo damaanad siinaya qofka haday duruufo la yaqaano ka soo kaxeeyaan dalkiisii oo ay dal kale keenaan in la ilaaliyo, la daryeelo, la difaaco waxa soo dhan. Marka qaxoontigu wuxuu ku jiraa ximaaya caalamiya wax la yiraahdo international protection. International protection ka uu ku jiro ilaalada caalamiga ah ee dunidu u damaanad qaaday waxay runtii dunida oo dhan ku tahay oo Soomaaliyana qayb ka tahay arrin naxdin ah oo fajicisa ah u qaadan waaya in boqolaal kun oo qof oo qaxoonti macnaheedu waa la yaqaanaa waa dad baahin oo jilicsan oo duruufaysan oo dalkoodii xaalada ka keeneen ama amnide ama dhaqaale ama nololeed oo waxay ka soo kaxeeyay aad ogtahay xaaladooda aad garanayso. Marka dadka noocaas in la siyaasadeeyo oo siyaasad laga dhex raadiyo oo humanitarian-kii iyo bini'aadamnimadii ay dalka ku joogeen inta laga gudbo boqolaal kun oo nafood khatar loo geliyo arrin siyaasadeed oo aan tuhunsanahay inay kooba xiriir la leedahay arrinta badda, maadaama kiiskii badda siday iyagu markii hore ugu tala galeen inaan anaga banaanka kula heshiino nidhaahno waanu heshiinay, aanu diidnay, aanu maxkamad geynay. Argoosi wax u eg in laga argoosto dadka maatida ah ee qaxoontiga ah ee duruufaysan runtii arrintaasi dunidana waa dhibaysaa, annagana waana dhibaysaa. laakiin idinkuba safiirkiinii halkaas waad u yeerateen, diblomaasiyiintii waad ka soo saarateen Soomaaliya ee Kenya joogay, xiriirkii labadii wadan meesha uu ka baxay. Kenya dhowr jeer waxay codsatay wada hadal in la galo, soo uma eka in Soomaaliya go'aanka Kenya ay kaliya u arkaysa mid siyaasadaysan, laakiin idinka wajiyo badan wax lagu sameyn karay aad meesha ka saarteen. Watiyan ku sheego bad hadda ay weydiisay moogtahay waxaan ku yiri waxa isteediyada ama wadamada waxa ka dhaxeeya ee siyaasad ah laba kasta oo wadan oo darisa kulliba arrimo dhexdooda waa ka dhaxeeyaan oo ay ka wada hadlaan, isku diidan yihiin, isku waafaqsan yihiin. Laakiin taas ma inay saamayso maaha boqolaal kun oo qof oo jilicsan oo maata ah oo qaxoonti ah inay saamayso maaha. wax kalena maaha علاقاتku wuu xumaaday, safiiradii waa qolo walba safiirkeedii waa u yeedhatay, laakiin waa arrin siyaasadeed ma aha arrin bini'aadanimo. Marka runtii adduunka oo dhan shock bay ku noqotay, qaramada midoobay iyo United Nations ay ku noqotay fajiciso, wadamada gobolka oo dhan baa yaaban, Soomaaliyana qayb bay ka tahay. Laakiin dadka siyaasadda dawladda dhaliila waxay idinku eedeeyaan in go'aano dawladda Soomaaliya hore uga qaadatay arrinta Kenya aysan ku eegin dadka Soomaaliyeed ee jilicsan ee halka jooga oo tilaabooyinkii aad qaadeen dhinaca diblomaasiyadda ay degdeg ahaayeen eedaa ma qaadanaysaan. Qaxoontiga caalamiga ah waxa ay ku jiraan wax la yiraahdo ximaaya caalamiya international protection waa UNHCR ayaa maamusha aqoonsan, waxay buuxiyeen dhammaan shuruudihii qaxoontinimo ee caalamiga iyadoo oo ay waafaqsan tahay 1951 axdigii la saxeexay ee Geneva ee qaxoontinimada. Marka wax ka khuseeya siyaasadda labada dal ma ahaba. waad aragtay qaxoontigu ma Soomaaliya wax siisa ma Kenya wax siisa midna waxa ma siiyo. waxa laga yaabaa cidda ugu badan ee ka faa'iida qaxoontiga Kenya tahay waxa la sheegayay lacag $1 billion inay sanadkii ka hesho dawladda Kenya. inagu ma hayno Kenya lacag ay qaxootiyada ku qaadato sidaad adiga hadalka u dhigtay, laakiin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dalka qaxoontiga magan galiyay wuxuu helaa gaadiidka, wuxuu helaa shaqaalaha, wuxuu helaa dhulka, wuxuu boqolaal faa'iido ayuu qaxoontigan kaga qaataa UNHCR. tasma wax qarsoon maaha, waa ilaa $500 million. ma waxaad leedahay baabuur Kenya leedahay qaxoontiga uma shaqeeyaan, ma aragti maaha, waa facts. macallimiinta ka shaqeeya, dhaqaatiirta ka shaqeeya, baabuurta ka shaqeysa, xafiisyada ka shaqeeya, diyaaradaha ka shaqeeya intaba Kenya leh. waxaan rabaa inaan ku weydiiyo UNHCR wax xiriir mid la soo sameeyeen oo
ku aadan qaxootiga Soomaaliyeed iyo sida loo maareyn karo may walaal welina lama soo sameyn laakiin waxaan markasta u rajeynaynaa qaxootiga caafimaad waxaan qaxootiga u rajeynaynaa nabadqab waxaan rajeynaynaa inay barwaaqoobaan waxa aan ka shaqaynaynaa duruufihii dalka ka saaray inaan hagaajino gobolada ay ka qaxeen misal jubbada dhexe oo kale waad ogtahay ilaa hadda xaaladkiisa dagaal baan rabnaa dagaalaha ka socda waa la haystaa ilaa waxaa la xaliyana qaxootigii kuma soo noqon karaan jubbadii dhexe marka runtii waxaan isleeyahay dowladdu waxay ka shaqaynaysaa dalka dadkaasi mustaqbalka qofkii raba waa qaxoonti caalamiya qaxoontiga caalamigaana isagaa khiyaarka ama doorashada isagaa leh inuu dalkiisii ku noqonayo iyo inuu joogayo UNHCR la joogayo iyo in la qaadayo saddexdaba isagaa u doorle laakiin annaga waxaa nagu waajiba in qofkii raba ee qaxoonti ah inuu dalkiisii ku soo noqdo ee gobolkiisii ku soo noqdo aanu ka shaqayno in loo diyaariyo in duruufihii markii hore ka waday ama ka kaxeeyey duruufo ka duwan inuu ku soo noqdo qaxootidaas 30 sano ayay Kenya degan yihiin oo caruur ku dhashay caruurtooda ayaa qaan gaaraya haddii lagama maarmaan ay noqoto in Soomaaliya lagu soo celiyo awood ma haysanad ku qaabishaan waataan ka shaqaynayno dalkeena waxaan wada fiican buu hayaa wuxuu hayaa wadadii soo kabashada meel fog baynu ka nimi waxaan ka nimi dal burburay dowladiisii burburtay hay'adihiisii dowliga ah burbureen hay'adihiisii dhaqaale burbureen hay'adihiisii kaabayaashu burbureen hadduun baan iftiinkii indhaha kusoo kala qaadnay inkastoo dagaal adag inagu socdo la rabo in godkii laynagu celiyo laakiin waxaan xukuumad ahaan ku dadaalaynaa inaynan godkii aan ku dhacnay ee laynagu riday 91 inaynan dib ugu noqon Kenya dhowr jeer ku dhawaaqday inay xariyaha xirayso welina ma muuqato dowladda Soomaaliya dadaal ay ugu jirto sidii dadkaasi haddii ay soo noqon lahaayeen guryo loogu sameyn lahaa hay'adaha gargaarka ee Soomaaliya ka shaqeeya waxay tilmaameen 2.6 milyan oo Soomaali ah inay gudaha dalka ku barakaceen oo in badan Muqdisho ay ku sugan yihiin xaalad aad u halis oo nolosha ah ay wajahayaan haddii xaaladuhu ay sidaas yihiin maxaa nolosha loo sii qorsheeyay way dadkaasi maad sheegin sababta waa 2.6 waa abaarta waa abaar runtii abaar baa dhacday roobkii dayrta aan filaynay baan intii loo ilaahay ka rajaynaynay roobkii baa yaraaday markii roobkii dayrtu yaraadayna jiilaalkii ayaa xumaaday abaar baa dhacday waxaan ku jirnaa bil kulul oo aad ogtahay xaaladeedu maars la yiraahdo ilaahay waxaan ka rajaynaynaa abril buu roobku daay in roob fiican uu inoo doo abril 15keeda wixii ka dambeeya xaaladaas way keentaa markastoo abaari dhacdo dalkan xaaladda duruuftu way saameysaa ugu dambeyntii waxaan jeclaan ku weydiiyo shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka Kenya way isdhex yaalaan waxaana muuqata inaysan kala maarmi karin oo Soomaali fara badanna halka qaxooti ku tahay oo mustaqbalkooda aan la saadaalin karin dad fara badan oo Soomaaliyeedna Kenya ay maal gashteen halka labada dal Soomaaliya muxuu la muuqdaa annagu markasta waxaanu ka shaqaynaynay darisnimo waxaan ka shaqaynaynay walaalnimo waxaan ka shaqaynaynay isu soo dhawaan waxaan ka shaqaynaynay isfaham laakiin waxaas oo dhan aan dhulkaaga qaato baddaada qaato qof Soomaali ah laga yaabaa dad qaar inay moodayaan haddii cabdi oo kale la yani waxa jira meel aan la dhaafi karin si kastoo aan rabno inaan wanaagga samayno hadduu leeyahay aan maxkamadda kiiska ka soo saar oo derbi intaan fadhiisano adigu ii qor oo dhulka qayb baan soo helay dhulkaaga Soomaaliyeed ka mid ah oo arrimaha gudaha farageliyo oo ciidamadii AMISOMta aan si fiican uga shaqaynayna goobihii ay ka baxayaan oo dabadeedna shabaab dadkii wax yeelayaan annagu waa dadaalnay annagu waxaan ku dadaalay walaalnimo annagu waxaan ku dadaalay darisnimo annagu waxaan ku dadaalay madaxweynuhu inta jeer ee uu arrintaa kala hadlay waad ogtahay ay madaxda Kenya iska arkeen mar walbana wuxuu jeclaa arrinta in aanay fogaanin هذا ما صنته